السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلامي ولا لهي قالي إيه أصحابتي إذا شرفت له وولاشين إلفيس جنال كذا قد ونسان وإلفيس فاميلي جنال وحربا إن ما تكهله أرن حساسي إيه 10 حساسية إن ما تكهله ربا إن شاء الله تعالى بإذن الله سيدا وذا أقنا هاي أنا قهرت وايد ويتنقط كواك مقنا وأنا حنوسنا وإذين شيغي waxaa ku maqnaa iyo xanuunkaygii inkastoona si fiican inkugu faahfaahinin waan iska xanuunsanaa xanuunadan dadka dhanna ee wada dhibayo unbay ahaayeen waxa uu ka dheeri ama aysan ahayn marka alxamdulilah haddana ilaahay baa ku mahadsan waan fiicanahay 100% aad baa u ladanahay waan ogahay wad xanuunsan tahay waad wahsanaysaa gurigaada kama shaqaysatid ilmahaada wax uma qabsatid adiga dhan caajis wahsi guriga waxaa kaa haysta dagaal meel uu ka socdo iyo meel uu ka imaado midna aada garanayn iyo meel uu u socdo ayaa ku haysto ama ninkaada la dirir ama ilmahaada la dirir ama familkaada la dirir yacni meel lagaa haysto ma taqaanid adiga dhan jahwareer baa kugu furan meel uu kaaga furan yahay ma taqaanid inaad shaqaysato wax qabsato waa rabtaa laakiin ma qabsan kartid inaad tillaabsato oo horumar samayso ood kacdo waa rabtaa laakiin ma kici kartid meel walba waa lagaa haystaa meel walba way kaa soo xirxirantay sax mise been maa sheegaya mise rug baa sheegaya taas adinka dhinka rabaa jawaabteeda maalin dhaweyto gabar baa isoo wacday aad u cabanayso aad u ooyeyso aad u welwelsan aad u kurboonayso maxaa kugu dhacay baa iri waxay tiri waxaa i dhibaataynayso oo dhib igu hayso gabar ay habaryartay dhashay oon ilma habreed nahay ayaa dhibaato igu haysay tiri haye gabadhu waxay tiri ninka aniga i qabo ayay jeceshahay way rabtaa haye waxay tiri gabadha mar alla markaan arko horta waxay tiri aniga dhan waxbaa la igu shubayaabay tiri qabow oo baraf baa la igu rogayaabay tiri ninkii ayadii way wada sheekaysanayaan hadallay isdhaafsanayaan hadal fiican bay isu adeegsanayaan si fiicanay u sheekaysanayaan haddana waxay tiri kama falcelin karo wax falcelina ma samayn karo indhaha ka fiirinaya markay kala tagaan ama ayada ay naga tagto ama asaga uu tago ayaan dhahayaabay tiri oo markay isas isku dhahayeen maxaa eragaas u dhihi weyday maxaa oraahdaada uga dhiiban weyday maxaad u aamustoo ku aamusiyey mideeda kale gabadhan iyo ninkan ajaanibaba kala yihiin maxaysaan dhan ugu sheekaysanayaan oo waxaan dhan u dhex marayaan markay iga kala tagaana isweydiinayaabay tiri markay ii imaadaan oo isku agarka saa u leeyahay bay tiri tii dheereed ka raacsii marka ama ayada aragta ama asiga aragta saa u leeyahay tiri labadoodii marka arka baraf baama noqonaya waxma weydiinaya tiri waxna ma su'aalayo walaalay inaan waashaa qarka u saaranahay bay tiri inaan waasho ayaan qarka u saaranahay waa runteed sax waay way jirtaa arrintaasoo kale andan marka annagu doqonimadanada marka waxaan samaynaa dumar haddaan nahay aminay tala fara ka baxday ayaan baraarugnaa in hurdada ka kacnaa hadda intaad fiican tahay ood xijaabka xiranayso ood labisanayso ood marada qabto isdaawee oo iscilaaji oo talaad u baahan tahayee tala qaado talaad u baahan tahay hadday diini tahay hadday maadi tahay hadday wacdi tahay hadday xadiis tahay hadday hadal tahay talaad u baahan tahay tala doono dhibaatooyinkaas hadday ku haystaan waa ogsoonnahay aabbihii ilmaha dhala wuu kugu furay magaaladu dhinac ka joogaa wuu shaqaystaa hanti buu haystaa xooluu haystaa biil kugu filan kuma siiyo ilmaha waxbarashadooda ma dhiibto ilmaha dhicaanahooda ma dhiibto ilmaha biilkooda iyo masruufkooda ma dhiibto laga yaabo markii lagu qaylqayliyo inuu xoogaa wax yaroo yuftacilo u dhiibo waa ogaha dhibaatadaasa ku haysato sax mise been way ku haysataa waa la socdaa ducooyin la aqristaa jiro ducooyin iyo suurado lagu soo noolaadaa jiro oo arrimahaasoo kale markay ku qabsadaan laga akhristo asagoo cidna soo qasbin waxda aadan ku samaynin buu ilaahay subxaana wa tacaala soo qasbayaa xaquuqdood u lahayd lagaaga soo qaadaya uu ilmihiisa biiranaya uu ilmihiisa daryeelanaya uu ilmihiisa usoo joogsanaya uu ilmihiisa xafidanaya inta badan qoysaskan waxa burburinayo oo idin baabi'inayo waxaan aniganba soo maray oo isoo wajahay oo haddadaanoo la joogo weli aanan si fiican xataa iiga daba dhammaanin waayo waxa idin burburinayo oo idin kala dirayo oo idin kala tuurayo bilxaqiiqda markaa idin sheego inta badan waxa qoysaska soomaaliyeed burburinayana waa arrintaas tala qaado iscilaaji isquraami isla tacaal wixii la marsan laa marso qubayso shallayso yacni hurdada ka kac hurdada ka toos
wax kale iska daaya waxaa laguu diidayaa oo lagaa dhaarinayaa tinta adiga kugu taalla inaad jallayso waxaa laguu diidayaa xibin adiga kugu taalla inaad qurxiso haddaad dadka shantaas farood cilaaman jiro oo madoobeyn jiray aad ahayd waad dhigaysaa waad daynaysaa waxma marsanaysid sida islaan asay wado naag la qabo waxaad arkaysaa sida islaan asay wado ciddiyaas ay u cadcad yihiin oo ayada iyo ninka qababa la kala garanayn waa naag dhan oo la qabo oo marwo meel degan naag dhan oo marwo waxaad arkaysaa indhaheedaas aanba indha kuul lahayn ayaad arkaysaa markay gurigeeda joogto dumarkuna markuu gurigooda ay joogaan inay indha kuushaan way qurux badan tahay quruxdii aybadii ka mid taha waxaa rabaa inaa hurdada ah ku jirtaan aad ka kacdaan dumar soomaaliyeedow xarunta qur-aanka imaada hadday talo tahay hadday qur-aan tahay hadday daawo tahay ifartinka baad ka helaysaa ninka ku nacay oo ilmaha kugu dayriyey abaal la'aan asagaa ilmihiisa kula korsanayo wixii lagu fara haddaad samayso wixii lagu dhaho aqrina aad akhriso sidii lagu dhaho ilaahay u caabudo u barina aad ilaahay u baridood u caabudo qalbi dhaba iyo qushuucna aad la imaado bilxaqiiq waad ka buskanaysaa dhibaatooyinka ku haysto waad ka ladnaanaysaa dhibaatada ku haysato carruurta kaa haysato adiga ku haysato guriga kaa haysato mushkilado adiga dhan sidii cajalad halowdiibaa saa isaga daba wareeganaysaa qof waxaad arkaysaa adiga aadan micno ugu fadhin laakiin adiga aad u jajaban tahay asaga laakiin adiga aadan micno ugu fadhinin haddana aad u jajaban taha micnona uguma fadhidid waxaad ugu jajaban tahayna ma taqaanid waa isweydiinaysaa qofkan ku dullaysanayo oo kugu tumanayo waxaad ugu jajabanta ma taqaanid waa isweydiinaysaa laakiin waxaad ugu jajabanta ma taqaanid ma garanaysid asagii ama iyadana way ku dullaysanaysaa way kugu kor socotaa ha ka yeerin cidna noloshaada ha u baabi'inin cidna madaxaada hoos ha u geynin inaad allah subxaana watacaala raaligeliso waalidiintaada raaligeliso wixii ka soo haray waa qaraabo ixtiraam bay kugu leeyihiin qofkii ku ixtiraamay ixtiraam kaan ku ixtiraamin danahaada ka raaco ha ku dabadaalin noloshaada maxaad u baabi'isay noloshaada maxaad u khasaarisay anigoo ilfisa diyaar waxaa u ahay dumarka soomaaliyeed oo dhibaataysan inaad dhibaatada ka baxdaan isdaawee isquraansaar iscilaaji dal iyo dibad meelaa joogtaa isku cilaajin kartaa meel alla meeshaa joogtana isku quraan saari kartaa meel alla meeshaa joogtana talo waa ku qaadan kartaa talo qaado soomaalidu waxay tidhaahdaa maan kaa maqan maskax walaalkaabuu ku jiraa maan kaa maqan maskax walaalkaabuu ku jiraa waxaa laga yaabaa anoon kaa cilmi badnayn hal arina oo adiga noloshaada wax ka beddesha inaan ku siiyo anoon aqoon ahaan kaaga cilmi badnayn ilaahay subxaana watacaala qof walba khibrad buu siiyey qof walba khibrad buu u yeelay ilaah subxaana watacaala sax hurdada ka kaca dumar yahow soomaaliyeed hala idinku dhaarto oo hala idin jeclaado oo hala idin ammaano hurdada ka kaca ha isla jaan qaadno casharkan casharada ka dambeeyo si fiican dhagihiina ugu fura adinkaa iska leh adinkuu idinku socdaa waa wixii idin toosi noloshiina inaan ku toosiyaa rabaa qof kasto oo dumar ah oo sii leecaysa inaan kusoo toosiyaa rabaa qof walboo dumar oo sii leecayso inaan kusoo toosiyaa rabaa intii garaadkayga iyo intii aan ka garanaya intii aan karo hadday qur'aan tahay hadday xadiis tahay hadday duca tahay hadday wax walba tahay inaan kugula wadaago ayaa rabaa janalka ilfis family janal waa iyadan farahaad ka qaadeene faraha ka dhaqdhaqaajiya oo kor u qaada wada shaqayn wanaagsan meeshay ilfis idiin fadhido waa la idiin soo sheegi doonaa biidni illaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq